asxaabtada qaaliga ah beeshka ku xidhan meel kastoo dunida kaga nooshin aad iyo aad badi salaamaya kusoo dhawaada barnaamijkeena ciyaaro aan kaga hadli doono suuqyada kala iibsiga iyo dhacdooyinka kale ee kubadda cagta. Tababara Arsenal Mikel Arteta oo waqti loo qabtay maxaa kasoo kordhay heshiiskii Tottenham heshiiskii Harry Kane ee Man City ku dooneysay iyo dhacdooyinka kale ee kubadda cagta aad la socdo wanaagsan barnaamijkana faahfaahsan. Weeraryahanka kooxda Tottenham ee Harry Kane ayaa qabay in guddoomiyaha kooxdiisa ee Daniel Levy uu ka baxay ballantii uu ka qaaday ahayd inuu bixitaan ogolaan doono suuqa xagaagan. Ilo ku dhow ciyaaryahanka ayaa sheegay inuu sii wadi doono inuu wax kasta siiyo kooxdaas walow aysan siin hamigiisii. Ciyaaryahanka Harry Kane ayaa qabay in loo ogolaado muddo ka hor inuu kooxda ka bixi doono haddii aysan guuleysan wax koob ah ama aysan 4 sano ku dhameysan Premier League. Kabtanka xulka England ayaa mid wiil qalbigiisa kusii jiray in wareegida kooxda Manchester City 28 jirkan ayaa doonaya inuu dib u helo kalsoonida kooxdiisa jamaahiirta Tottenham kuwaasoo ciyaartii hal iyo eber kaga adkaadeen kooxda Manchester aad u dhaleeceeyeen baraha bulshada. Sportsmail ayaa sheegaysa inaysan u badnayn inuu Harry Kane kusoo bixi doono liiska xidiga Spurs ee ka qaybgalaya UEFA Conference League ay la ciyaari doonaan kooxda Blackburn. Tababara Nuno ayaa doonaya inuu ka tago kulankaasi oo isugu diyaariyo ciyaarta Wolves ee la ciyaari doona toddobaadka soo socda. Arsenal ayaa ogolaatay Arteta inuu xornimo iyo cadaadis la'aan ku shaqeeyo 18 bilood ugu horreeyay sababtoo ah xaaladii uu kooxda ka dhaxlaya saameynta caabuqa safmarka coronavirus. Haatan ilo wareedyo Eurosport ayaa xusaya in bisha Diseembar ee dhammaadka sanadkan ay tahay waqtiga loo mudeeyay Mikel inuu shuruudaha bishaas laga eegi doono ay tahay inuu kooxda u soo saaro kaalmaha loogu soo baxo horyaalada Yurub. Sidoo kale arrinta werwerka ku haysa maamulka Arsenal ee la xusaya in hab ciyaareedkii dhaqanka kooxda ay uga baqayaan maadaama in muddada Arteta uu joogay ay waayeen qaab ciyaareedkii ku salaysnaa kubadda ee garoomada ayna la iman. Sidoo kale Arsenal ayaa si fiican u taageertay Arteta gudaha intii lagu jiray suuqa xagaagan ay u soo iibisay Ben White iyo Alberto Lukaku iyo Nuno Tavares. Sidoo kale labada heshiis ee Martin Odegaard iyo Aaron Ramsey ay ku dhow yihiin heshiiskiisa inay dhamaystiraan. Xidiga khadka dhexe ee ka ciyaara naadiga Sassuolo ee maalin walba ku toonay ayaa ku dhow dhamaystirka heshiiska ugu wareegay kooxdiisa Juventus isagoo saaka gaadhay xarunta tijaabada caafimaadka ee kooxda Juve. Naadiga Sassuolo ayaa wadaxaajood dheer kadib ku heshiiyay inuu Lukaku heshiis amaah 2 sano ugu wareejiyo garoonka Allianz Stadium kadibna ay waajib tahay dowladda inay bixiso lacagta qiimaha lagu qiimeeyay €35 milyan oo shuruud la'aan ah. Halyeeyga reer Talyaaniga Antonio Cassano ayuu ka soo yeedhay hadal dhaliyay in la wareejiyo oo laga doodo. Uu sheegay in xidiga dalkiisa ee Ukraine iyo hadiiba abaalmarinta xidiga sanadka ee Ballon d'Or ka mudan yahay Lionel Messi. Ukraine ayaa dad badan u arkaan mid guuleysan kara Ballon d'Or sanadkan kadib markii uu Champions League la qaaday kooxdiisa Chelsea sidoo kalena uu kula guuleystay xulkiisa Talyaaniga tartanka Euro-da. Antonio Cassano ayaa wuxuu sheegay in Chogri ma aamini kartaa fadeexadda haddii adiga ku siiyaan Ballon d'Or aysan siin Messi. Wuxuu igu jawaabay inuu raacay uu yidhi haa waxaanu yidhi markasta waa in Messi guuleystaa. Walow Antonio Cassano uu sheegay in aragtidiisa uu la qabo Chogri haddana xidiga Chelsea uu sheegay in loo tixgeliyo tartamo maadaama hadiiba codayaasha ay siiyeen muhiimada koowaad ay siiyaan koob. Kooxda Real Madrid iyo Arsenal ayaa ku heshiiyay qiimaha ay Gunners ku iibsanayso kuba sameeya khadka dhexe ka ciyaaraya Martin Odegaard. Arsenal ayaa bilowday wadaxaajood Las Palmas kala doodaysa si toos ah uga iibsato Odegaard kadib markii qaab ciyaareed lagu qanco ku soo bandhigay Emirates Stadium qaybtii labaad xilli ciyaareedkii hore markaasoo amaah ku joogay waqooyiga London. Wargeyska Sportsmail ayaa haatan sheegay inuu fahamsan yahay in labada naadi ay ka kala dhisan England iyo Spain ay ku heshiiyeen qiimo dhan 30 milyan oo ginni isla markaana u dhiganta €35 milyan oo Arsenal ku dhamaystirtay saxiixa 22 jirka ee khadka dhexe ka ciyaara.
kooxaha ugu qiimaha badan dunida ayaa la shaaciyay, waxaana kaalinta koowaad ku jirta kooxda Manchester City oo naadigaas safka ugu qaalisan adduunyada, halka horyaalka Premier League uu kobac weyn ka sameeyay boodhka ku qasan naadiyadii hore ee lagu yaqaanay kaalmaha sare ee ay fadhiyaan. Kala bartamaha kooxda ugu qiimaha badan adduunyada waxay ka tirsan yihiin horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League, halka PSG ay isku urursatay xiddiga waaweyn iyaduna soo cidhisatay kaalmaha sare. Laakiin Chelsea oo la soo wareegtay Romelu Lukaku ayaa noqotay koox si weyn uga sare kacday oo hoos u riday naadiyada sida Manchester United iyo Liverpool, waxaana loo kala saaray sida Champions-ka halkii ka muuqda 10 kooxood ee adduunyada ugu qaalisan. barnaamijkeena ciyaaruhu maanta intaas ku eegay dhammaan aad ba mahadsantihiin asxaabta qaaliga ee ku xiran page-keenan. asxaabta qaaliga fadlan subscribe, like, share intaa noogu dara si ay noo noqoto dhiirigelin oo soo badnaa barnaamijyadeena ciyaaraha. sidaas iyo nabadgelyo.